السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارta dhammaantiin waa islaam anigoo sheekh mahad maanta waxaan halkan ku sameeyey rooti baana oli oon dhexdiisa ku sameeyey kalluun iyo cheese iyo qudaar inaba caadi maahan rootigan waa rooti maasha allah special ah aad iyo aad u fiican saad arkaysaan cheeska soo jiidmayo marka hadda rootiga waxaan ka sameeyey iyo wuxuu ka kooban yahay kala tusaya insha allah halkan waxaa igu jiro bur halkan waxaa ku jiro ukun saad arkaysaanba halkaas waxaa ku jirto waa cusbo halkan waxaa ku jirto waa sokor halkaas waxa yaalo waa khamiir halkan waxaa ku jiro waa caano diiran intaan ayaa isku qasaya hadda ukuntan ka bilaabaya waxaan ku darayaa jab khamiir ah amba leybad hadda qofka u yaqaano waxaan ku darayaa in yaroo milix ah waxaan ku darayaa 3 qaando oo sokor ah waxaan ku darayaa caanihii diirnay caanihii kulaay marka intaan ayaa maaragtay khamiirkan waa cajiin waa inaan jijibiyaa oo burburiyaa kow inaad khamiirkan si fiican si burburisaa maaragtay ku dhalaalaa inta yar ee gudaha kadib ayaad maaragtay burka si fiican ugu qasi kartaa haddii kale khamiirka hal meel uu ku kuusmaa isagoo dhanba adoo qasinba marka muhiimaddu waa cajiinkan sida u qasaysid iyo muhiimaddu waxaa ah markaad rooti sameynaysa inaad khamiir siisid waqti aad siisid oo ku khamiiro rootiga maanta waxaan ku qasayaa keliya caano wax biyo kuma qasayo caano keliya ku qasaya rootigan هذا سفيان يا مارتي سو دحقليay waad arkaysaa soo u jilicsan yahay maartay soft u yahay muhiimaduna waa inuu jilicsan yahay rootiga markaa qasisid yar oo saliid ayaan ku darayaa rooti baan oli markasta waxaa fiican inay ukunta maartay kasoo carfayso ukunta ay ugu badan tahay hadda maasha allah waa soo qamiiro wax yar marka hadda waxaan sameynayaa waan kuskuusayaa oo maartay maxay ahayd hore aan dhahay hadda ayaan qamiirinayaa yaraada naqdo hadda ayaan bacsaaray hadda uu soo qamiiray marka hadda ayaan kuskuusayaa oon sii daboolayaa haddana hadda waan kuskuusayaa markaan kuskuuso halkaas boolbal yar maxay tahay ama bur yar ana halkaas ugu shubay soo dhulka ugu dhigin marka waan daboolayaa waxaan siinayaa waqti kale uu kusii qamiiro maanta dhan waxaa waaye markaad ku kuuso markaa shaqo maanta dhan waana khamiir siisaa rootiga daarta inuu kuu fiicnaado oo dhexdiisa ku noqday sida doolsho oo kale saa markaan u fidiyo hadda marka dhexdiisa wax ku shubayaa kalluunkii iyo qudaartii hadda maanta ku dhex shubayaa kabacdi cheese ayaan ku shubayaa kadib waana laabayaa si macquul ah waxaan ku shubayaa hadda waa cheese ama farmaajo hadba suu qofku yaqaano kadib waan ku laabayaa gacanta ayaan si fiican ugula qabanaya markaan ku laabayo waana isku qabtaa iyagoo dhan marka halkaas marayo ayaa maaragtay waxaan sameynayaa rootiga ayaan jeexjeexaya amba cajiinkii ayaan jeexjeexaya kadib haddana kusii laabaya haddana
saxankan saliid ayaan mariyey markaas saxankan ayaan sii dul saaray haddana waan sii daboolaya oo maaragtay bac baan saaraya haddana caana horta aan ku shubayaa caana ayaan marmarinaya caanaha markaan marmariyo kadib ayaan daboolaya khamiir kala sii siinaya because mar kastaba rootiga inuu ku fiican daartid waa inaad time siisaa khamiir oo ku khamiira oo kaliya marka hadda waan daboolaya bac baan ku daboolaya kabacdina waan khamiireynaya hadda marka waxaan gelinayaa marka insha allah ovenkii hadda noogu jiraa maasha allah waa khasaan u soo gaduutay hadda waxa waaye maasha allah daqiiqadii u dhamaadeen hadda ayaan kasoo saarayaa si fiican ayuu u bislaaday u gaduutay innaba caadi maha rootigan